daawadayaal barnaamijka qalinku waxa uu mar walba taageeraa akhriska qoraalka waxa uu mar walba garab taagan yahay kacankan aqooneed ee ay fafaalihiisu ka muuqdo guud ahaan gayankeena maantana waxaa farxad ah inaan war fiican idinka siido korna kale oo kamid ah gayankeena waa gaashaamo iyo dhulkii hawd oo markii ugu horeysay ka shaqeynaysa inay aasaastaan maktabad guud dadka arrinkaas u xilqaamay ee ka shaqeynaya waxaa kamid ah saaxiibkay Jaale Saahid Faray oo barnaamijkan igala qayb galaya kusoo dhawo barnaamijka walaal waad mahadsantahay saxafi Cabdullaahi waana dhawahay bismillaah allahumma salli wa sallim wa barik alayhi hadii aan kusoo dhawaado xog kooban na idinka siiyo deegaanka hawd ama degmada gaashaamo waxay ka tirsan tahay gobolka Jarar waxa uu ka kooban yahay 12 degmo waa degmada ugu baaxadda ballaaran leh dad tirada dad ugu badan ay ku nool yihiin dadka ku nool waxa lagu qiyaasaa 100,000 oo qof marka qaarna waxa la sheegay 120,000 oo qof statistics-ka la sameeyo inay gaaraan tirada dugsiyada ku taala waa 83 dugsi 6 kamid waa secondary schools inta waa dugsi sare inta kalena waa dugsi hoose dhexe ay ka kooban yihiin tirada ardayda wadarta guud ee ardayda ah ee u dareerta subaxdii waxbarasho aada dugsiyadana taga waxa weeyaan 20,200 oo arday ma sha Allah lambar aad fiican iyo horumar aan filanayn weeyaan ayaa ka muuqda deegaanka aynu imka soo noqono arrinkan maktabadan iyo shaqadan ka socota sidee ku bilaabantay halkee ay samaraysaa muddo badan ayaan deegaanada hawdka marayay una kuurgalayay xaaladda ka jirta anigu shakhsi ahaan saahid ahaan guud ahaan deegaanka gaashaamo ama hawd waxa ka jira baahiyo badan oo tiro badan dhanka caafimaadka jidad la'aan baa ka jirta waxbarashadeeda oo aan horumar badan aan ka jirin baa jirta baahiyaha ka jira waa kuwa aad u tiro badan waxaan ka fikiray baahida ugu mudan ee meesha ayada ah laga haqabtiri karo waxa ii soo baxday in baahida waxbarashadu ay tahay ta ugu mudan ee binaadan laga haqabtiro ama wax looga qabto ama wax lagu taro sidaas baa waxa noogu soo dhacday inaan hawshan ayada ah ee maktabad guud in laga sameeyo deegaanka gaashaamo maadaama oo aanay ka jirin deegaankaas wax maktabad public library wax loo yaqaano ayaan arinta ayada ah isla aragnay inay muhiim tahay in laga hawl galo deegaankana baahida waxbarasho laga haqabtiro baahiyaha ka jirana taa waxbarasho ay tahay ta u mudan ee bini'aadam laga caawiyo ilaa hadda arrintan halkee maraysa horumar intee leeg baad ka gaadheen meel fiican baa ilaa hadda wax noo marayaan xogta markii aan isku soo dubariday waxaan imid magaalada Hargeysa waxaan la kulmay haldoor dhalinyaro ah oo ragga jaamacadaha ka baxo professors u badan waxaan la wadaagay baahida waxbarasho gaar ahaaneed iyo inay mudan tahay in laga hawl galo maadaama deegaanka raggii ka soo jeeday aan anagu nahay muhiimna aan ahayn in deegaankaaga aad u shaqo tagto ay muhiim tahay inaad adigu wax ku tarto oo aad wax ku darsato dhalinyarta baadiyaha ku silcaysa ee daroogada iyo tuulayaasha farfadhida ayaan ku aynu ka hawl galno mustaqbalkoodana aynu dhisno ifino waxaanu isla garanay arrintii waana ila qaateen waxaanu dhisnay guddi fulineed oo ka kooban 7 xubnood aniguna aan gudoomiye u ahay 7 xubnood waxaan u gudbinay maamulka degmada gudoomiyaha iyo maayarka iyo tiimka la shaqeeyaba xogtiina waanu la wadaagnay wayna la qaateen wayna soo dhaweeyeen waraaq sharciyeysan oo ay hawshan maktabadda ay aan wadnay isxilqaanka ah iska wax u qabsay aan ku jirnana wayna soo raaciyeen sidaasaan hadda ku hawlgalnay safarkaygii koobaad waxaan u baxnay jigjiga maadaama jigjigi tahay caasimadda dowlad deegaanka meesha laga maamulo gaashaamo waxaa noo qorshaysnaa inaan la kulno wasiirka waxbarashada ee dowlad deegaanka Soomaalida nasiib darro wuu maqnaa oo maanaan iselin nasiib wanaagsan waxaan la kulnay Cabdikariin Awraale oo ahaa odayaashii deegaanka secretary-ga boardinka ah ee banaana boarding school loo yaqaanana dhisay sidaas lamida waxaan la kulanay dhalinyarta iyo raggii jaamacadaha ka baxay ee ku sugnaa jigjiga xogtii maktabadda aan la wadaagnay waxaan u bandhignay inay iyaguna doorkooda qaataan hawshan isxilqaanka ah waxna ku darsadaan ololaha buugaagtana qaybtooda ka galaan hawsha jigjiga jaamacadaha la kulmaan maxadada kale buugaagta laga heli karaa la kulmaan laftooda inay wax iska ururiyaan oo buugaagta tayada leh
aqoonta fiican laga helaa badanka maktabaday taallaa oo in la soo gado ayaa muhiim ah marka laga yimaado qabanqaabadaas iyo shirarkaas dadka kala duwan ay stakeholderska la yeelateen maxaa idinka hirgalay dhismaha maktabadda laftarkeedii meel fiican bay ayaa wax hadda noo marayaan dhismaha waxaanu helnay dhismo danguuda oo degmada ku taalla maamulkana waxaanu isla qaadanay in goobtaas ay noqon doonto goobta maktabadda ah annaga laba xaalun baa hadda markaa noo yaallo oo howlgalkoodii aanu wadnaa midi waa ololihii buugarurinta oo aanu isaga hadda bilownay iyo qalabkii la dhigayay maktabadaas hadday agabkii hadday kuraasii tahay hadday miisaskii tahay ololihii buugtu iyagu si fiican bay u socdaan oo wakiilaanu sameynay jigjiga dhalinyartaasaanu wakiil oga dhignay burco wakiilaanu ka sameynay hargeyso wakiilaanu ka sameynay dhalinyar ah oo lagu soo hagaajin doono buugaagta iyagu raadin doona mahadada xisbiyada shirkadaha wax daabaca jaamacadaha buugaag ka soo codsan doona ololihii baa markaa hadda noo socda magaalooyinka dunida meelaha dadka deegaanka ka soo jeeda oo dhan ay ku nool yihiin waxa noo jooga wakiil ayaa ku sugan buugaagta la keenayaana meesha ee baahida gaarka ah ee ardaydu ay u qabaan guud ahaan waa buugaagta aqoonta tayada leh oo dhan dhammaan maadooyinka oo dhan ka kooban gaar ahaan waxay aada u sii xiiseynayaan buugaagta luuqadaha baahidaasa aada loo sii xiiseynayaa laakiin waa la soo dhaweynayaa buug kasta aqoon kastaabaha ku qornaatee aqoon anfacaysa ubadkan mustaqbalkoodana ifinaysa bilaysa hagaasinaysa taas waa arrinkii buugaagta hahay dhanka kale ana qalabkii iyo maaliyadii iyadana maxaa ka qabateen weli ilaa hadda waxaanu ka qabanay ma jirto degmada gaashaamaanu tagnay goobtii baanu tagnay waanu soo qiimeynay qiimeyn iyo xog ururin baanu hadda soo sameynay hargeysaanu kula soo laabanay xogtii baanu rabnaa inaanu la wadaagno dadka deegaanka ka soo jeeda haddii alla ka dhigo oo ayagu si isxilqaana uga qayb qaadan doona hawsha ayada ah doorkoodana qaadan doona door nooceeya ayay dadkaas ka qaadanayaan arrinkan dhiska maktabadda magaalada gaashaamo sidee bayna uga qayb qaadanayaan doorar badan bay uga qayb qaadan karaan maadaama sida aan hore kugu soo sheegay ay baahiyo badan ay ka jiraan deegaanka oo cisbitaallo tan maktabadda ay ku koobnaano ta maktabadda haddii aan u soo noqdo dee in qalabka iyo agabkan in la soo gado oo miisaaniyad iyo kharash lagu soo gado ayuu u baahan yahay buwaagtu in la soo gaday u baahan yihiin kii buwaag keeni karaa isagu soo gadi karaana wuu soo gadayaa oo intuu maktabadda tago buwaagta aqoonta tayada leh ee u arko inay mudan yihiin inuu ubadka u geeyo uu soo qaadayaa kii qalabka maktabadda sidiisa u soo gadayaana wuu soo gadi karaa kii nala soo xidhiiri kara ee odhan kara baahiyaha la samaynayaa baahiyaha jiraa waa noocmana wuu yeeli karaa sidaa dhowaanna waxaanu rajeynaynaa inaan kulan u qabanno dadka haldoorka ah deegaan ka soo jeeda baahidaana aanu kula wadaagayna haddii alla ka dhigo ilaahay idinla garab galo aad baad ugu mahadsantahay shaqada fiican aad qabatiin qofkii doonaya inuu la xidhiidho guddida qabanqaabada iyo abaabulka dhismaha maktabadda gaashaamo waxay kala xidhiiri karaan boggooda facebooka iyo welibana lambaraanta ka muuqda shaashadda aad iyo aad baad u mahadsantahay cabdilaahi xasan jaamac